Cabdillaahi Maxamed Ducaale waa wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Hargeysa waa caasimadda Somaliland wuxuu ku dhashay deegaanka Haradhaylo oo magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar u jira 20 kiiloomitir. Cabdillaahi waxa ku qaraxday miino dawladii Maxamed Siyaad Barre kaga tagtay wadanka waxaana miinadaasi sabab u noqotay inuu waayo labada gacmood iyo qaybo lugihiisa kamid ah oo faliidadii miinadu ay soo gaarsiiyeen dhaawacyo balse Cabdillaahi waxa uu si cad u sheegay inaan miinadaasi dhaawac ay soo gaarsiisay u istaagin waxbarashadiisii waxana uu sheegay in intuu ugu badnayd uu ku soo qaatay magaalada Caynaba isla markaana jaamacadii uu ka dhameeyay Hargeysa 2015 xilligaasi oo xafladii loo qabtay uu ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waana kan isagoo ka hadlaya qaabkii miinadu ula qaraxday iyo sidii uu noloshiisa u soo kafeeyay waati dagaal wadanka ka dhaceen dagaaladii ahliga ahaa rajiimkii Maxamed Siyaad Barre wadanka uu kaga tagay miinooyin iyo adagu dhibaatooyin fara badan oo wadanka ka tagay dartood baa markaa ciyaal waxaan ka helay meel miino miinadan oo nooca loo yaqaan bufaal sida la sheegay markii dambe dadkii yaqaanay ku sheegeen marka tiibaan anoo ciyaal garaacay waan gargaraacay inta ka bacdi waxaan la soo gudbiyay anoo miinadii markaan gargaraacayna miinadu way ku qaraxtay inta ka bacdi waxa la soo aaday magaalada Berbera oo ilaa iyo aan ku qiyaasay inay ahayd 98 meelahaas oo kale xilligaas oo dhakhtarta Somaliland ay halkaas u ahayd dhakhtar oo sida la sheegay hay'ad koob loo oran jiray joog jirtay taas marka dhaawacii miinadan ee gacmaha waxa laga farsameeyay oo gacmaheena lagu gooyo lagu farsameeyay dhaawacii darteedna markaas waxaan ka soo kabsaday marka ilaa iyo adigu muddo in yar ama dhowr bilood ka bacdi oo dhaawacii qabo ilaa 99 oo ayaan haddana dib u bilaabay waxbarasho ayaan ka bilaabay degmada Caynaba ee gobolka Saraar waxaan ka bilaabay iskuulka hoose dhexe ee Horyaal Caynaba kaasaan ka bilaabay waxaan dugsiga hoose dhexe aan markaa ka baxay 2007 sanad dugsiyeedkaas baan ka baxay waxaan u gudbay dugsiga sare ee Gutaale Secondary School Caynaba ku yaalsna 2010 baan isna ka baxay adigu waayahaygii waxbarasho ee hoose dhexe sare dhammaantood waxaan ku soo qaatay waxaan u galay struggle adag baan u galay markaasaan xal kale doonay halkaas oo noqday inaan wax barto kaasaan markaa success ama aan ku guuleystay oo aan ka mid dhaliyay inaan wax barto ilaa aan u soo gudbay heer jaamacadeed marka laga yimaado Cabdillaahi inuu waayay labadiisa gacmood haddana waxa ugu darsamay inuu waayo labadiisa indhood oo iyaguna kamid ah xubnaha ugu muhiimsan ee qofka aadamiga oo noloshiisa saameyn weyn ku yeesha waxaana sharaxaya waxyaabaha sababa inuu indhihiisa waayo la socdaalka iyada ka tirsan haddana markii dambe la soo bedelay markii aan la bil meelaha joogay sardaarnimo gudaha xaqan iyada la soo bedelay xaqan la socdaalka taasoo markaa in ka shaqeynayay ilaa muddo 5 bilood 3 bilood inta aan ku tilmaami karo anigu oo markaa adigu inta ka bacdi isla 2015 ahayd isla markaasaan markaa indhaha madaxa ayaa waxay yimi xanuun madaxa ku yimi oo darbad leh oo fara badan oo aan u jiifay ilaa 3 sano 2 sano iyo badh meelaha intii la dhowr bilood bilood u dambeysay mooyaan aan inta badan aan u jiifay marka xanuunka laftarkiisa halka maskaxdayga ka dhacay oo yeelahayo fara badan ayaa neerfayaasha indhaha ee xaqan aragga ayuu waxyeello u geystay marka kaasa indhuhu xilligaas way dameen waxay dameen 2015 bay dameen dhaqaatiir fara badan oo Hargeysa
waan maray laakiin xanuunkayga adugu wuxuu ilaahay waafajiyay xagga dhinaca ka dhanka biyaha ama neefayaasha Victor Gaboose kaasoo muxuu ahaayay markii uu muxuu ahaayay siiyay dibooyinkiisa siiyay aan ku caafimaaday dhinaca marka laga tago indhaha oo isaguna sheegay markii dambe isagu inaanu indhaha ku shaqo lahayn laakiin intii kale oo dhan isagu la soo tacaalay Addis Ababa oo laba mar ay tagay iyadana taasoo iyaduna sidaas si leeg muxuu ahaayay la mid oo neefayaasha waxa aan kula soo tacaalay oo iyaduna Addis Ababa si leeg oo laba mar ay tagay marka adigu dhinaca caafimaadka dhaqaatiir fara badan oo dalka waan maray wax dalka ka baxsan Itoobiya ayaan tagay oo taarikina taasina muxuu ahaa indhaha wax weyn kaasoo waxay sheegeen inay wadamadan horumaray oo development country-ga unay ka qaban karaan Afrika aanay arinkooda uu dhakhtarku waliba Itoobiya joogo oo leeyahay Terios oo dhakhtarka ugu caansan ku Itoobiya ka mid ah sheegeen inay Afrika aan filayn aanay waxba ka qaban kareen wadamada Afrikaan ay arinkan indhaha oo ay arinkooda culus yahay marka saas sheegeen dhakhaatiirta Cabdilaahi Maxamed Ducaale waxa la geeyay dhakhaatiir ku taala Hargeysa iyo Itoobiya waxaana uu ku rajo weyn yahay in mar uu wax laga qabto indhihiisa in loo soo celiyo isagoo sheegay in dhakhaatiirtu xuseen in dalka dibadiisa wax laga qaban karo wuxuuna Cabdilaahi soo bandhigay codsi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland loo qoray oo ku aadan in Cabdilaahi dhakhtar caafimaad dawladdu u dirto balse arrinkaas uu ka cagajiday wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi isla markaana isagoo mar kale codsiga badbaadinta xubnaha ugu muhiimsan noloshiisa ee inuu mar uu helo indhihiisa ku celinaya wasiirka madaxtooyada Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu codsaday in laga caawiyo in loo diro dhakhaatiir dibadda ah si uu mar uu helo laxaadka indhihiisa oo soo laabta dawladdu aanu shaqeynay laftarkeeda waan codsaday muxuu ahaa inkastoo sida loo ogyahay qof kasta dawladdu way dirtaa laakiin aniga muxuu ahaa warqadihii uu qoray Freeland socdaalkii hore istalina cabro oo kale isaguna qoray Maxamed Cali Yuusuf Fayraahde muxuu kale qoray wasiirka arrimaha gudaha Cali Warnacade oo xilliga joogay dhamaantood oo uu soo socodsiiyay madaxtooyada xirsi baa markaa joogay xirsana markaa isagoo markaa gacanta ku dhigay oo jecelahay inuu soo saari lahaa dhakhtarka dibadeed oo cid kasta oo dawladda ka tirsan oo shaqaale dawladeed oo anigu waxaan ahay sarkaal ciidanka qaranka ciidanka la socdaalka aan ahay oo xidiglaan inay ii soo saari lahaa ii soo saari lahaayeen ayaa waxay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi marka Maxamuud Xaashi dhowr jeer marar badan odayaal adigu wuxuu sheegay inuu lacagta bixinayo wixii ka soo aadan wixii ka awoodi karo dawladda ama dawladahan isagu shakhsiyan ma aha dawladahan ay bixinayaan inkastoo aan ogeyn inuu madaxweynuhu og yahay madaxweynuhu markii hore uu ogaaba deynaan oo ugu dambeysay xilligii la qaatay oo kaliyata haddana Maxamuud Xaashi arrinkii wali kama soo bixin Ilaahi Maxamed Ducaale waxa uu sheegay in noloshiisa ay wax badan oo ciriiri ah soo wajaheen isla markaana aanu nolosha ka quusan balse uu u baahan yahay dadka caafimaadka qaba ee lixdoodii laxaad Ilaahay u dhameeyay inay la dareemaan xanuunka ay ku hayso indho la'aantu isla markaana lacag gaaraysa $30,000 ay ku baxayso in indhihiisa loogu badbaadin karo dhakhaatiir dibadda ah intaasna uu marti uga yahay qof kasta oo damiirna iyo diir muslimnimo ku jiro meesha uu doono dunida ha ka jooge waana kan isagoo fariin qiiro la diraya waxaan mar labaad ka codsanayaa Maxamuud Xaashi Cabdi madaxweynaha Maxamuud Siilaanyo oo qaatay markii aan arkay dadaalka iyo struggle-ka uu galay nolosha waxbarasho kuna qanceen inay qaateen maalinta qalinjabinta oo ay qaateen shaqaale dawladeed inay haddana mar labaad caafimaad dibadda ay ugu diraan ka dawladahan shacabkana iyaguna wixii iyaguna ay ka awoodi karaan iyaguna sidoo kale ka codsanay iyaguna inay soo awoodaan cidii jecel muxsiniinaha ee jecelnay qarashka isaga ay wax ka bixin karto ama ay la bixin karto ama ay bixiso iyadana welcome oo soo dhaweynaya waana codsanayaa inay dadweynuhu wixii wanaaga jecel meel kasta joogaan everywhere inay qarashka isaga inay ga taageeraan iga soo boodgareeyaan waan jecelahay oo soo dhaweynaya
dowladda Soomaaliland waan jecelahay soo dhaweynaya iyadana laakiin hadda wali wax taageero ah oo meel aan ka helay shacab iyo dowlad midna ma jirto Cabdilaahi waa wiil dhalinyaro isla markaana nolosha higsi fog kale welina ka quusan rajada nolosha waxaanu u baahan yahay hiilkaaga inaad maanta ugu damqato wixii aad u awoodo adigoo ka soo qaadaya inaad booskiisa taagan tahay waxaana laga codsanayaa inaad la soo xidhiidho isla markaana aad lambarkiisa ku tari karto aad ku soo biiriso fadlan u damqo walaalkaaga ku baahan maanta si aad ajar badan u hesho maalinka qiyaame ee xisaabta aakhira u furan tahay محمد فرح بلا تلفزيون كيستار هرقيسة